asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waladii salaamay khiyaarta dhammaantiisa aad u dhantihiin meel kastood kala joogtaan dunida daafeed halkaad igala socotaan waa janalka ladan cabdow fadlan dhegeysto haddii aad igu cusubtahay isku day inaad janalkeena subscribe gareyso gambeelkan oon ka dhigato si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oon soo sheer garayna biidnillaah haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogistaada qiimeyntaada quruxda badan soo dhawow markale waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabto sidaan aniga u caafimaad qabo insha allah haddii aad xanuunsan tahayna ilaahay caafimaad taama ku sii haddii aad caafimaad qabtana caafimaadkaaga allah kuu zaa'idiyo maanta waxaan idin wadaa qiso run ahaantii qisadan ani ahaanteyda markaan dhageystay waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago laakiin waa qiso run ahaantii dareenkaaga kicin doono oo yacni qiiro badan kugu reebi doono oo maxaa la dhahayay qisadan horta waxay ka sheekeynaysaa ama ay yacni ka sheekeynayso maamo waayeel ah iyo wiilkeeda sida ula dhaqmay iyo sida aakhir arintii yacni marka wiilkeeda si xun ula dhaqmay iyo sidii arinteeda ay ku dhamaatay qisadayna aan guda galno. maamadan waxa ay dhashay hal wiilkeeda asoo 5 jir ah ayaa waxaa dhintay ninkeeda. maamada waxay tiraahday wiilkayga waan soo barbaariyay oo waan koriyay yacni ilaa iyo heer uu ka guursado oo reer uu ka yeeshto caruur uu ka dhalo. waxay dhahday waxaa jirto naagta uu qabo in ay tahay naag aad u xun oo aniga aanay arki karin. run ahaantii waxay tiraahday waxay markasta ku fikirtaa ama ay yacni wiilkayga ay u sheegtaa in ay wiilkayga igu dirto oo guriga laga saaro laakiin aniga waxaasoo idil waxay tiraahday dhib umaana dhigeerid. wiilkayga ayaa wuxuu dhahay hooyo inawad yacni meel inta ayaan aadaynaa oo waan soo laabanaynaa camal keynta iyo meelahaas ayaan soo fiirinoo waan soo laabanaynaa nabad hooyo. maamadii waa maamo iska waayeel wiilkeeda way ku kalsoon tahay wuu soo waday wiilkeeda waxaa lagu magacaabaa ibraahim waa uu soo waday hooyadiisa oo soo waday keenta ayuu dhex keenay. markaas ayuu wuxuu ku dhahay hooyo waad daashayaan u maleeyaa biyaad cabtaa meelahan nooga fiirinaya. hooyadii way ku kalsooneed wiilkeeda meeshii geed hoostiisa ayay iska fadhiisatay ayadoo iska fadhida wiilkeediina la ayaa waxaa u imaaday nin reer baadiye ah oo beero falata ah ayaa soo galay keenta oo u imaaday. markaas ayuu wuxuu ku dhahay habar yar ama maamo maxaa meeshan kaligaa ku fadhiisay ciladan. waxay ku tiraahday wiilkayga ayaa iigu maqan biyo aan cabo waayo waan daalay asiga ayaa ila socday. markaas ayuu ku dhahay yacni wuxuu fiiriyay geesihiisa lagtii oo dhan ama yacni meeshii oo idil waa wada biyo yacni markaad tilaabooyin yar aad hore lugahaaga u qaado waxaad arkaysaa biyo waa dhul markaas roob ku da-ay oo kaali iska arag ah. markaas ayaan usoo laabtay ninkii ayaa usoo laabtay hooyadii oo reer baadiyaha oo beeraleyda ahay wuxuu ku dhahay maamo wiilkaaga haddii uu dan kale lahayn ama keyntan uu rabin inuu kaaga dhex tago soo biyo tan meel kasta ay ku jiraan ma ahan saacan wuu ku keeni lahay maxaa biyaha meel saas u fog maba naga jiraane. waxay ku tiraahday wiilkayga waxay ga sheekaysay yacni waxay tiraahday yacni sida ay kusoo korisay aabihiisa asoo 5 jir inuu ka dhintay yacni in ay nolol adag kusoo korisay ilaa heer uu ka guursado oo ilmo ka dhalo. markaas ayuu wuxuu dhahay aniga waxaan u malaynayaa ninkii oo reeb waxaa dhahaya oo keynta ugu imaaday maamada aniga waxaan yacni aan niyadeyda isiinaysaa wiilkaaga inuu meeshan kaaga tagay ku dhawaad saacado ayuu ka maqanya haddii uu run qabo anigaaba hadda intaasoo saacadood agtaada joogo haddii uu rabo inuu ku wado biyaha intuu kuu soo qaado waayo meel kasta biyo ayaa jiro oo roob ayaa ku da-ay wuu kuu keeni lahaa. maamadii yacni waxay tiraahday wax qiil badan markay raasada wiilkayga way jecel yahay wiilkayga waa hooyana waa dareemi kartaa ubadkeeda ma jecel si kasta uu xun yahay in wax laga sheego. waxay ku tiraahday ninkii oo beeraleyda ahay waxay tiraahday haddii ay arintaas dhacdo waxaan ballan ilaahay ku qaadayaa in aan hadal kale aan hadli doonin oo qof bini'aadan kale aan la hadli doonin oo quraanka rabbigayga bis aan afka ku hayn doono. hooyadii wuxuu dhahay ninkii way iga tagtay waxayna afka ku haysay quraanka ayadoo iga tagtay oo quraankan afka ku haysay ayaa waxay ku wareeganaysay keenta dhexdiisa hadba geed hoostiisa ayay tagtaa waa kaba la-aan kabihii way ka tagtay way yacni way naxday waa cagacadahay marna geedaha ayaa duro gacmaheedii korkeeda dhan wada dhiig ayuu noqday hadba geedsi iskugu jiidaysay quraanka u aqrinaysay markii dambe geed korkiisa ayay iska fadhiisatay dhiiggii waxayna korkii gacmihii way ka socdaan quraan ayay iska aqrisanaysay
waxaa soo galay keenta ciidanka magaalada ama yacni ciidan markaas waxaa saaran nin gudoomiye ka ahaa oo yacni meeshaas madax ahaan ka ahay tuulada ay joogaan degmada ay joogaan. ninkii ciidankiisa ayaa soo galay keenta iyagoo raadinayo haweeney dishay yacni cunug 3 jir ah. markaas ayaa hooyadii cunugaas dhashay waxay tiraahday waxaa iga wadatay maamo duq ah ayaa iga wadatay cunugayga iga afduubatay kadibna dil way dishay oo meesha ayaa iga dhaqaaqday. calaa kulli xaal keenta iyagoo ku dhex jiraan maamadana korkeeda wada dhiig ah iyo cunugii yaraay oo keenta geeska yaalay oo dhiig asna naf baxay ayay arkeen. horaaba loo raadinayay yacni qofkii dilay ayaga waxay ka dhigteen in ay maamadan dishay. lasoo qabtay waxaa loo keenay ninkii meesha maamulka hayay ayaa loo keenay. wuxuu ku dhahay hadal saqiirkaan maxaa ku dishay. habartii maba hadlaysaba qur-aanka waa tii hore ay ballanta u qaaday qur-aanka ayay iska akhrinaysaa qur-aankii ayay akhrinaysaa maamadii waa la waday. ninkii uu ku xanaaqay wuxuu dhahay stationka hala geeyo waana la dilayaa mar dhow. hooyadii stationka ayaa la geeyay. stationka ayay iskaga jirtaa maray qur-aan akhriso maray salaad tukato ayay noqotay. maalintii u dambeysay oo in la dilo la rabay oo stationka laga soo bixiyay ayaa waxay tiraahday yacni 2 rakac ayay tukatay oo gacmihii ayay kor u taagtay ilaahay ayayna bariday qur-aankeedina sidii ayay u wada taabo way hore ayay ballan u qaaday. waa ay soo baxday maamadii waa la soo wada iyadoo garbaduub u xiran. waxaa la keenay fagaaro oo dad dhan ay buuxaan. ninkii oo meesha ka talinaya ayaa wuxuu wacay nin dilo naagtan oo u xil saaran dadka inuu qoorta ka gooyo. ninkii ayaa loogu wacay. ninkii wuxuu dhahay yacni u sheeg dadkoo idil hadda ayaan rabaa qoorta inaan ka jaro. mid kale ayaa microphone watay dadkii dhan ayuu wada shaquu dhahay maamada hadda ayaa la dilayaa. dhanka kale wiilkeeda murug ma seexdo qalbi hur. markaas ayaa wuxuu yacni habeen ayuu seexday asagoo hurdaayo ayaa riyada wuxuu ku arkay 2 nin oo ka dhadheer oo ka waaweyn oo qabanaysa oo yacni dilaysa hoostiisa yacni jabaasha uu ku jiifa oo lagu garaacayna hoosteedan dhulka oo dhanna wada dab ay tahay. 2 nin ayagoo sii jiidanayaan oo godka ku rideen oo god weyn oo holac madaxa u geliyeen yacni qaarka hore iyo qaarka dambe godka ayaa loo geliyay la garaacay ayaa hooyadiisii uu arkay. hooyadii ayaa ka celisay mar labaad ayay hooyada haddana kasoo hoos jiiteen oo isla sidii hayeedana meesha u geliyeen. hooyadii markaan tookadii hore waa ay ka celisay laakiin tookadan labaad kama celinayso oo way dhoola cadaynaysaa cunugeedina way macsalaameynaysaa. wiilkii markii intaas riyadiisii ay marayso isna hooyo uu ku dhawaaqay ayuu hal mar soo baraarugay. markaas wuxuu kusoo qeyliyay hooyo naagta soo yacni inuu soo baxo hooyadiisa raadiyay rabo maxaa la dhahay wuuna ogyahay yacni magaalada in maamo lasoo qabtay oo station ay ku jirto in maanta la tooganayo ay tahay laakiin hooyadiisa uma uusan malaynaynin. naagtaana oo uu qabay waaba ogtahayba wayba ku qanacsan tahay wayna faraxsan tahay in hooyadiisii laga taqlusi rabo oo kasoo taqlusay asi oo banaanka cad waaga soo tagay. calaa kulli xaal wuu soo kacay asoo naxsan wuu soo baxay. naagtiisii ayaa waxay ku dhahday inteed ujeedaa aniga wuxuu dhahay hooyadeeda ayaan raadinayaa. markaas ayay waxay ku tiraahday ogow haddii aad baxdo oo hooyadaada aad raadiso inaad aniga iisoo laaban doonin ood guriga maran aad u imaan doonto. markaas ayuu wuxuu ku dhahay aniga wax kasta oo dhaco maanta lima reebi karo qof kastana hooyaday ayaa iiga muhiimsan adigana waad iga furan tahay ee gurigeyga ayaan kugu soo laaban. ninkii siduu usoo cararayay wuxuu tuhunba ka qaba olba maamadaas inay hooyadiisa tahay. waa uu soo baxay goobtii wuxuu imaaday oo wax yacni maamada in lagu qalaro. maamada waxay u fadhidaa garbihii ayaa gadaal lagu xiran 2 jilbood ayay ku fadhidaa. ninka hortiisa waxaa taala dambiil oo rabo inuu madaxa markuu gooyo oo ku rido u geeyo ninka degmada gudoomiye ka ama ninka degmada maamulo. maamada iyadoo saas oo safety rabo inuu ku dhufto ayaa wiilkeeda ordaya ag imaaday. wiilkeedii ayaa imaaday markay aragtay oo loo soo daayay hal mar wuxuu dhahay ii daaya maamadan ayaan rabaa inaan la hadlo. hooyadii markay hoos fadhiistay oohin ayuu jilbaha jabsaday. ilaahay ayay gacmaha kor u taagtay waxay ku daray hadda ayaan hadli karaa alxamdulillaah ilaahow adiga mahad iskale wiilkayga ii soo celiyay. aniga
waxay ballanteedii aheyd dhahday inaan hadlin ilaa aad iga imaanayso. Haddana alxamdulilah ilaahay wuu ii kaa keenay, waayo ilaahay dikriga aan baryay ama baryada ama qowlkiisaan afka ku hay marna ma dayacayo. waayo ilaahay ayaan rajadeyda oo dhan ilaahay ayaan ku xiray, asaga ayaan rajo fiican kasi waayay waana helay ayay tidhaahday. hooyo wuxuu dhahay yacni dib dambo yacni ma kuugu dhaqmaysaan, naagtiina waan iska furay. wuxuu dhahay igana raalli ah hooyo iska kay cafi. markaas ayay waxay tidhaahday hooyo lagama yaabo inaan aniga marna ku habaaro ama aan ku fogeeyo ilaa inaan kuu duceeyo mooye, waxaana tahay baarigayga ayay tidhaahday. run ahaantii qaadigii ama ninkii oo meesha xukumayay ayaa wuxuu maqlay oo loo sheegay in maamadii ay hadashay. wuxuu dhahay ka leexda alle ii keena maamada aan wareystee. wuxuu dhahay waay markii hore aad u hadli weysay markii aan kugu xukumay in lagu dilo ama aan ku dhahay qof ayaa dishay. waxay tidhaahday aniga qofna ma dilin, ilaahay ayaa ila og, waxaana ilaahay ballan kala galay wiilkayga inta uu iga soo laabanayo Ibraahim in aanan hadlin, oo haddii aan hadlayana qur-aankiisa oo keliya aan ku hadlo. markaas ayaa wiilkii wuxuu dhahay wallaahi wuxuu dhahay hooyadeyda qofna ma aysan dilin, weligeedna qof ma ay dilin, cunug yar iska badaayo saqiir ah. wuxuu dhahay sida aniga ii soo barbaariday iyo jacaylka iyo maxabada ii qabtaa, wuxuu dhahay inta ama kusoo koobi karinbo qof ay dishay iska daaye. markaas ayaa hooyadii iyadoo ku jirto stationka ayaa waxay maqashay ciidankii oo lah naaga badan in lagu tuhumayo cunugaas dilitaankiisa. markaas ayaa waxay tidhaahday qaadi aniga arinta aan kuu sheegayo waa inaad ku dhaqaaqdaa, waayo waxaad yacni soo xirxirtaa inta naag oo aad ku toonsan tihiin dilkaas inuu geystay. naagihii oo dhan ayaa lasoo qabtay, ku dhawaad ilaa 4 naag camal ayaa looga shakisanaya, waa lasoo qabtay waa la keenay. markaas ayaa iyagoo la su'aalay la wareysanayo oo mid walba ay dafirayso ayaa waxaa imaaday nin ciidanka ka mid ah. wuxuu dhahay qofka dilaaga meydka waxaan kasoo aragnay in geed uu kasoo shiirayo, waayo dhirta geenta dhexdeeda ayaa lagu dilay, in dhir uu kasoo shiirayo cunuga meydka. dhirtaas qofka dilay gacmihiisa ama jilbihiisa ama korkiisa waa laga shiirinayaa, korkiisa ama gacmihiisa waa in la ursadaa si looga garto. ninkii qaadiga wuxuu dhahay hala ursado, qof kasta ayaa la ursaday. qoftii laga arkay ayaa waxaa la dhahay yacni geedkaas may waxaa la qofkaas geedkaas intii la ursaday kor waxaa la qofkii geedkaas laga shiiriyaa. ogow 9 qof oo aan yacni la dilay inuu asiga dilay, intii aanba la ursanin qof gabar naagihii naag kamid ayaa soo istaagtay. waxay tidhaahday wallaahi aniga ma dilin 9 qof oo dhan, aniga hal cunug basaan dilay, waayo iyada ayaaba is sheegtayba. markaas ayaa wuxuu dhahay anaga muhiimadeena ma ahayn in aad yacni 9kaas aan kugu nabno, laakiin waxay ahayd inaan kaaga sheegsiino hadalka oo cunuga sir aad ku dishay. hooyadii sidii ayaa lagu fasaxay, naagtiina sidii ayaa lagu dilay. hooyadii iyo wiilkeedana waa ay isa soo raaceen oo gurigooda ayay kusoo laabteen. sheekadan ama qisadan run ahaantii waa qiso dhab ah. yacni waxaa meeshan inooga cad in hooyada markasta ama si kasta oo loola dhaqmo inay awlaadeeda jeceshahay, aysan marna habaar u quurin. way jiraan waalidiin habaara ilmaha, laakiin waa laga qurux badan yahay inaad cunugaaga habaarto. meeshaad ka habaari lahayd waa inaad u duceysaa, waayo haddii aad u duceyso ilaahay ducadaada wuu aqbalaya. walaalayga haddii aad qisadan ka hesheen la wadaag walaalihiina kale ama friendsiyaalkiina kale si ay ga faa'iideystaan. like share waa muhiim, ha iga baqiilin. waad ku mahadsantahay intaasoo idil haddaad ii samaysay. asxaabteeda markasta waan idin mahad celinayaa, ilaahay ajri xasanaadna ha idin siiyo. like-tan ha iga iloowina, waayo muhiim ayay ii tahay, wuxuu codkayga gaarayaa meel sare. insha allah ilaahay ajri xasanaadna ha idinka siiyo. waxaan idinka tegayaa muuqaalkani muuqaalo kaloo la mid ah. wassalaamu calaykum waraxmatullah.